war-saxaafadeed madasha siyaasadda Puntland waa madal ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin aqoon-yahano iyo waxgarad reer Puntland ah lana dhisay kadib markii la arkay xaaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee Puntland ku sugan tahay taas oo lagama maarmaan ka dhigaysa in dowr muhiim ah laga qaato xal u helideeda madashu waxay u taagan tahay ilaalinta dowladnimada xasiloonida midnimada iyo sarreynta sharciga dowladda Puntland madashu waxay xaqiijinta in Puntland ay ka dhacdo doorasho hufan loo dhan yahay oo si nabadgelyo ah ku dhacda laguna soo doorto baarlamaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen 8 January 2024 xaaladda magaalada Laascaanood madashu waxay cambaaraynaysaa xasuuqa lagu hayo shacabka magaalada Laascaanood oo maamulka Somaliland si xoog ah ku haysto madashu waxay ka tacsiyeynaysaa dadka sida arxan darrada ah magaalada loogu laynayo madashu waxay ugu baaqaysaa xukuumadda iyo shacabka Puntland inay garab istaagaan kacdoonka shacabka reer Sool hannaanka doorashooyinka xisbiyada badan madashu waxay aaminsan tahay in Puntland ay ka dhacdo doorasho xor ah iyo xalaal kuna dhisan hannaanka xisbiyada badan balse madashu waxay xaqiiqsatay in xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ka leexatay jidkii saxda ahaa ee geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland madashu waxay ka digaysaa arrimaha soo socda kow in xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni aysan horseedin qalalaase iyo firaaq dastuuri ah oo Puntland ka dhaca lagana fogaado wax kasta oo horseedi kara hubanti la'aan siyaasadeed labo madashu waxay ka digaysaa in la majara habaabiyo shacabka Puntland iyo in laga shaqeeyo wax kasta oo horseedi kara khalkhal amni iyo isku dhac soo gaara midnimada iyo wadajirka shacabka Puntland baaq madashu waxay diraysaa baaq waxay ku baaqaysaa in shacabka reer Puntland ka digtoonaadaan dhagarta siyaasadeed iyo marin habaabinta lagu dhex wado nidaamka doorashooyinka in hay'adaha amniga aanay ku dhex milmin siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda dastuuriga ah ayna u hoggaansamaan sharciga madashu waxay bogaadinaysaa isimada Puntland waxayna ugu baaqaysaa in ay qaataan doorkoodii shariifka ahaa ee ay kaga jireen xasiloonida iyo midnimada Puntland madashu waxay ku baaqaysaa in la isugu yimaado shir wada tashi oo looga arinsanayo xaaladda doorashooyinka Puntland in la joojiyo diiwaangelinta hubaysan ee xukuumaddu wado si looga baaqsado isku dhac amni iyo shaqaaqooyin ka dhasha hannaanka doorashooyinka aan loo dhammayn sixidda khaladaadka ku jira habka dimuqraadiyeynta Puntland madashu waxay soo jeedaysaa iyadoo asaas looga dhigayo 13 qodob ee ururada siyaasadda Puntland soo jeediyeen in lagu sixi karo madashu iyada oo bogaadinaysa taageerada deeq-bixiyayaasha haddana waxay ka digaysaa in aysan qayb ka noqon hannaan doorasho oo xasilooni darro abuuri kara madasha waxaa ku jira oo baaqan soo saaray magacyada hoos ku qoran kow Axmed Ciise Cawad Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Gablax Cabdirasaaq Maxamed Axmed Shoole Cabdullaahi Sheekh Axmed Faarax Ali Shire Guuleed Saalax Barre Maxamed Cabdi Baldo Maxamed Yuusuf Cali Maxamuud Xaye Ibraahim Xasan Aadan Sheekh Doon Cali Cabdicasiis Muuse Cali Maxamed Xaaji Saalax
فايسة عرتن بوس علي حاج ورسمه عثمان عمر فرصدح عمر إسماعيل وابري سعيد نور قاس سعيد عثمان محمد سعيد موسى عبدي سعيد حسن دلي سياد علي جامع سليمان محمود واد ما سنتين انت اسنا وانت قرهان اما مدشان كسو صارتي باقان هذه